Dabuang terkuha bogane Dadua hodan atong bebeshe Alela dihino Kudalayo at puhiranayse Sarap kuha bogane Wahodan at puhiran Halela dihiyo Kurben kudalayo at puhiranayse Wabahilmanin kuleedahay dhulkaaga hooyo haybad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo waana lama huraane agarnixii wax ugu qabo waana lama huraane agarnixii wax ugu qabo heestaas waa jeclahay ku leedahay dhulkaaga hooyo waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo lama huraane agarnixii wax ugu qabo huraane agarnixii waa midaan way laga orane yey macaan waa midaan hoy laga orane helayo waa midaan laga orane helayo dadkii soo galaya meesha ka soo galaya maybe markuu heesku dhama dad baa soo gala marka hadalka bilaabo mo ya ay علي حسن وصح شاب 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 اليوم في الشاب ده يس ساوث افريكان شاب هذيك ده يس هي علي حسن ورشيق فاطمة الحاجي امال فرح ادم dhammaantiin soo dhawaada waxa weeye dhalinyaradii Soomaaliyeed qaaliga ahaydu soo dhawaada welcome xogaa yar baan rabaa maanta inaan ka hadlo asaas u badnayn Jamaal Faarax Aadan waa midaan oy lahayn in adeerkay soo dhawow Jamaal wadaniyo soo dhawow Faaduma ina xaji soo dhawaada waydin soo dhawaynaya meeshaan waxaa ka soo gelaysa islaan la yiraahdo Posteeye halgan macnaheedu waxa weeye qof u halgamaysa wadankeeda dadkeeda diinteeda jiritaankooda mustaqbalkooda ama future-kooda midnimadooda
si ay u horumaraan oo caalamka bini'aadanka caalamka jooga horumarkay gaaraan u gaaraan dadkaygoo kala leexleexdoo kala jajaban oo isku kacsan oo mucaarad ah oon israbin I don't want ma rabo waa dhimashadayda أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أخيارا وسلم تسليما كثيرا ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام أما بعد أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق حسبنا الله ونعم وكيل وحوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمد الصوماليات عالم كدافع عالم ككل شوكتا دمانتين وإذن سلامية ملء شوكتان بوإذن سلامية آدي آدان إذن سلامية إلهي وحن كبر يا خير يا عافمات يا هنون يا دنبداف يا نبتقليو حسلوني يعني إلهي كبرينا كل جين ميلان شوقنا ما إنه ربك ينسيه أنت دبعتي يا والدين تاني ورنا الله ودم بداف قبرك الله واسعيه كتاب كذا ميرك الله كسيه أنت النور الله إلهي سبحانه وتعالى هنونيو عافمات هسيه إلهي سبحانه وتعالى قلوبه خاضع اسكو صدمه ضد إسلام وسنه النبي يا كتاب كذا هيسته oon cirdi iyo xaasidnimo iyo cuqdad iyo qabyaalad midna ku jirin allah hayna ka dhig waxa weeye qofku qalbigiisa isaga nadiifin karo shaydaanka hadduu qofku iska naaro qalbigiisu waa nadiif maaya walaalkiis waxa jecel yahay hadduu la jeclaadana qalbigiisu waa nadiif maaya waxa weeye oo dadka yagii hore aan ka soo gaarnay annagu oo Soomaalida ahaa dad aad iyo aad isugu xiran oo aad isu jecel oo mataqaana walaala oo wada dhashay oo wax wada cuna oo mataqaana nacayb iyo qabyaalad iyo waxba aan dhexdooda iyo qalbigooda ku jirin bay ahaayeen oo iska dhala oo wada isdhalay oo hal oday dhalay oday Soomaali baa wada dhalay dhammaantood wiilal iyo gabdhaba waa walaalo waxa weeye hal oday baa idin dhalay waxa weeye sidaad u dhaqmi jireen u dhaqma dad diinta islaamka haysto sunni wa jamaaca habaatihiin kacab dad diinta lagu seef lagu islaamiyay ma tihidin waad maqasheen waad qaadateen awowayaashii baa qaatay qarniyadii hore tegay wax alaaliya wixii afartii kitaab soo degtayba Soomaalidu waa qaadat wax seef lagu islaamiyay iyo wax xoog lagu islaamiyana laguma arag waa maqleen waa qaateen dad aad iyo aad u tixgeliya diinta islaamka ay ku dheedhahay oo diintooda iyo sharaftooda aad u karaameeya oo ku dhagan oo ku dhinta waaya dadka Soomaaliyeed waxa weeye markaa maadaama ina awowayaashiina aad ka soo farcanteenba gaal ahayn oo cawaan ahayn ee dad islaama oo ilaahay oo bokon oo kitaabkooda iyo diintooda ku dhaqma yihiin waay hadda maxaa idinkala tafaraaru ahaya maxaa idinkala cayrinahaya maxaa isku haysataan dhulkii waa joogaa diintii waa joogtaa dadkii waa joogaa nimcadii dhulku waa buuxdaa gaaladuna intaa waxbay saa idinku hurgufaysaa lacag oo aan caadi ahayn an control lacagaha idinku socota iimaankii baa markaa idinka tegey waagii aad dhulkiina faganayseen oo xoolihiina haysateen oo aad dhulkiina isaaqsanayseen oo ina dibad lacagu idinka imaanayn oo aan dibad cidu idinka jirin oo aan dibad irsaqiina ka sugayn waagaasaad fiicinaydeen iimaan baad lahaydeen karaamaad lahaydeen sharaf baad lahaydeen diintiinaad haysateen waa isku dan baad ahaydeen waad wada noolaydeen talantaali baa noloshiinu ahay waxaa idinka daray lacagahan dollarka ah oo sixirka wata oo afarta koona idinka soo galahay oo qaarna beesha caalamku idinku buufinayso oo qaar UN idinku buufinayso oo qaar idinka midna imaaraad ay ku buufinayso iyo carab si ay idinku kala disho isugu kindino isaga kin horkeen war dhaqankiinni hore ku noqdo war xoolihiinni ku noqdo war beerihiinni ku noqdo war kalluunkiinni gurta war lacagta dollarka ah dibadaha ka imaanaysa ee balaayadu idinku soo hurgufaysay idinku bahdilayso idinku baabiinayso isku kindirays ya oo ilaa 91 dhigiin ku daadanayay iska joojiya ha u hanqal taagina qaaf rabbuka qota dhulkiina beerihiina fasha kalluunkiina la soo baxa waayo lacagti fawq al aqliga ahayd waa isku kindir adow bay isaga kindir
ونبى نبكو هرديها يلا عدت وبدي كان كلها الدليل هردن بماشي كصعدة هردن كماها مد نودنا معها مد داد ودنا دين ودنا دل ودنا معها وهرجن ودنا كوح دنا يسنا هرجن ودنا wax aqliga kali kara maaha waxaan wax lagu sii socon kara maaha waxaan wax la dhowran kara maaha waxaan wax qadiyad inoo ammaa waxaan wax diin inoo ammaa hal la joojiyo tabkhalalada iyo mucaaradka iyo problemka dawlad baa dhisateen dawladdaas xoog iyo xabad kuma ay qabsan wadanka ya dawladda nabadiina runta idin sheegaan wax runta idin sheegaad weydii Soomaaliya wax runta idin sheegaad weyd qabyaalad ba 24 saac meediyada ka socota iyo baraha bulshada ku kulanto iyo qabyaalad ay qabiil ay iyo gobol ay iyo kan ay iyo xisbi ay iyo xagga war hal dawlad baa leedin hal wadan baa leedin hal calan baa leedin hal diin baa leedin hal midab baa leedin hal af baa leedin ma intaas ku heshiin weydin ya madugaag iyo diqsibaatiin digaag iyo diqsibaan waxba ku heshiin bini aadanku waxba ku heshiiya wax ka dhaxeeya oo mahurta oo qof walba uu xaq u leeyahay baa ka dhaxeeyo ay ku heshiiyaan oo ku socdaan oo ku caanamaalaan oo adduunkii ku horumaray oo caalamka kula xisaabtamaan maxaa kula xisaabtamaysaa caalam ma qabiil baa lagula xisaabtamaya caalam maya maxaa lagula xisaabtamaya caalam waa qowmiyad yar oo Soomaali la dhaho adduunka dadka caalamka ilaahay dadka ku nool reerka ugu yar waa qowmiyadda ugu yar xataa dhulkoodu waa yar yahay kow diima badan ma haystaan hal diin bay haystaan midabyo badan ma haystaan hal midab bay haystaan war waxaa idinka khaldan war ummadda Soomaaliyeed maxaa idinka khaldan reer hebel soddon sano oo go'an baad ku jireen koob shaah oo aad ka dheeftaan male guri bacay iyo gablan iyo galangal iyo naasabeel baad ka raacdeen baad ka hesheen oo dhaxasheen dadkii niyo baabaa bahdil ceeb fasheexi intaasaad ka hesheen weli ma ku sii soconaysaan saaxiibyaalo ya weli ma ku sii soconaysaan weli ma saasaa raalli ku tihin waxaan uga digayaa ummadda Soomaaliyeed khilaafka inay joojiso isna caybka iyo qabyaaladda in la joojiyo qofka kale wax uquur waaga in la joojiyo marka xaasidnimaday ka mid qof walaalkii wax uquur waaye waa jaahil xaasid ah xaasid haddaad aragtana waa jaahil aan caqli lahayn qofka caqliga leh qofka iimaanka leh qofka diinta leh walaalkii wax waa u ogolyi Soomaalida maxay ku soo ururnay majority maxay ku soo ururnay qof jaahila oo diin lahayn oo iimaan lahayn oo xaasida meel laguma gaaray cadaab waxaan ahayn lagama helay adduunkana ciqaab baad ku mudanaysaan aakhirana cadaab baad ka helaysaan waxaan idin leeyahay oo anigu aan idin leeyahay oo dad yahow idin sheegaya Soomaaliyeed meel kastoo aad joogtaanba waxa aad ku kacaysaan iska dhaaf qof baa qaldamaya danaysta ah isagu dantiisa meesha ka arkay qaladka uu samaynayo ummadda ku samaynayo dantiisu ka arkay durbaan baa loogu garaacaya qabiil wayna hebelay wareer hebelay gobol hebel buu xukumaayay gobol hebel buu haystaayay gobol hebel buu ka soo jeedaayay baba durbaanka loo garaacay waa ceb fashaaxi awal dawladdan dhisan ummadda Soomaaliyeed baa dhisatay qori caaradda kuma ay qabsan inqilaab kuma ay qabsan daaqada lagama soo tuurin waa dawlad Soomaali ah waa dad Soomaali ah ragga haysta Soomaali bay u dhasheen anaga kitaab ku marahaya inay Soomaali asli yihiin ka farac Soomaali asli ah oo waliba islaam oo sunna wa jamaca inay yihiin kitaabkan aan ku maray kitaabkoodii awooga baabaaqa maxaa loo diidan yahay looga soo horjeedaa soo qabiil ma aha maxaa loo mucaaradahayo inay dunto loo rabaa soo dan khaasa ma aha oo group iyo qof iyo ay wataan qabiil ma wato danta khaaska qabiil wata ma jiro group baa wata group yar oo dan leey oo ayagu ka dhex arkay dawladdaas inay duniyaan lacag ku qaatay lacag bay ku qaateen dumiya la yiri dawladda Soomaaliya lacag baa la idin siinaya waxna hore loo siiyo waxna hadda lagu guraya dhibaatadu waxay ku dhacaysaa waa dalkayaga waa dadkayaga waxa dhibaatadu ku dhacaysaa waa dalka iyo dadka iyo diinta
lacagta ninkaan qaadanayo dhulka dawladda lagu duminayo waxa dawladdu ka dumaysaa waa shacabka Soomaaliyeed waa dalka Soomaaliyeed waa diinta Soomaaliyeed meeshaanu hadda ciidan ka dhisanay oo intaas oo horumar dawladda gaadhay oo la rabo in la sii horumaro oo la rabo in shidaal la soo saaro oo la rabo in wadanka dhan ay dawladdu qabato baa fanku hadda mid meel u leeyahay midkaas dantiisu rabaa dan qabiil ma rabo dan gobol ma rabo dan ehel kale ma rabo dantiisa kaliya waxa cawaanta ah oo caaqa ah oo caqliga aan lahayn oo cilmiga aan lahayn oo cuqdad nafsigu ku jiro baana raacaya ninka dan layla waxa cuqdad nafsigu ku jira raacaya okay waxa weeye marka anugu hadda waxaan idin sheegaya ummadda Soomaaliyeed dib inayna noo celin dib inayna noo celin anigu xalad Puntland baan ka hadlay kama hadlayo caawa kama hadlayo Puntland xalaan la hadal lama saaraayo waa qaldantihiin waa qaldantihiin waa qaldantihiin boqolkiiba boqol baad qaldantihiin joojiya qaladka wadanka dhibaataha u horseedineen ummadda dhibaataha u horseedineen awal baa reer Puntland dhibaato ka dhigeen awal baa reer Puntland kala go'ay awal baa reer Puntland kala burburay ma garanaysaa sidooda iyagoo kala burbursan oo kala bacbacsan oo kala jajaban oo kala jeedjeeda nabad ha ku helaan dagaal yaan loogu darin dhimasho yaan loogu darin dhaawac yaan loogu darin ilaahay baa irsiqooda haya qof irsiqooda haya oo kale ma jiro allah subxaanahu wa tacaala baa irsaqa wadankooduna barwaaqa taala xoolana waa haystaan oo dad cayro mucsiro baraka ayaala ma aha waa qowmiyad dhan dhibaataha u horseedinay nimanka muxuu ahaayay Puntland xukumow dhibaataha u horseedinina gobolka dadka dhibaataha u horseedinay ilaahay uga baqa ummadatan 30 sano dhibaato ku soo jiday hal qabiil qaran ma noqdo hal qabiil dawlad ma noqdo waxa la yidhi baasaboor baa la sameynaya oo Puntland leedahay waxa la sameynaya lacag Puntland leedahay waxa la sameynaya calan gooniyo Puntland leedahay kuwa hadda calanada ka hor rooshaan ahayn waxa la sameynaya kan iyo kan oo hada aad soo gelinaysaan baraha bulshada ay ku kulanto wax shaqeynaya ma aha waa fake waa ben waa huha hadaad go'aysan toos u goosta xala intii sheeg goosta oo ka baxa ummadda Soomaaliyeed ka baxa qaranka Soomaaliyeed goosta cid iyo dhul meesha aadaysaan aad cid idinka dab imaanaysa iyo cid idin yeeraysa iyo cid idin baahan midnaba jidho hadina idinku dadka u baahnay reer Puntland nimanka Puntland xukumow ma aha anigu shacabka kama hadlayo nimanka Puntland xukumow hadina u baahnayn Soomaali oo ummadda Soomaaliyeed u baahnayn oo qaranka Soomaaliyeed u baahnayn oo wadajirka Soomaaliyeed iyo midnimada Soomaaliyeed u baahnayn idinkana cid idin baahan ma lehe fidmada shacabka kala dhexbaxa fidmada shacabka oo shacabkan aad luminaysaan oo lugoynaysaan oo baabi'inaysaan كدايا انت بدلان بان وحن هذا الدين اي هذا القامن با انكو ابهنا هي نمانك بدلان حكومه مامولك بدلان مسؤوليته كا مايرك iyo xukuumadiis dani Abdullah maxaa Saciid Abdullaahi Dani iyo maamulkiisu inay cagaha wadanka u dhigaan inay gobolka cagaha u dhigaan inay shacabka cagaha u dhigaan inay huhaada iyo beenta imaaraad soo aqrinayso laga joojiyo dadka shacabka uma baahna dhibaato haddeer uu dhibaato ku jira oo gobol walba in ku filan hoostaala gobol walba in ku filan hoostaala dib kale iyo dagaal kale iyo waa go'onay iyo calanaa samaynay bangi baan soo xaaraynaa iyo baasaboor baan samaynaynay boodharaa la xiraya nacnacdaas waa hadalka doqoniinta waa hadalka xayawaaniinta waa hadalka matan jaahiliinta hadal jaahil baan u aqaan anigu warsay hal qabiil u go'i karaayo baasaboor iyo u samaysan karaa maxaan ku iraahdaayay baasaboor iyo u samaysan karaa bahal yaa u samaynaya maxaa uu ka soo samayna magaro waa lagu sameeyaa madbacadu taano caalamku ula tagi lahayo baasaboorada u samayn lahayo u saari lahaa maxaa heeto stickerka oo ay ula tagi lahayn ma ogola Somaliland baa laga diiday marka dadka aad waalaysaan dani iyo gruubkiisa ka joojiya waalid oo anaga waalinayna dadka shacabka ah wax qabadka u baahan aan dhibaatada u baahnay every night waa soo galayna waana idinku abinayna ama ummadda ka dhex baxa ama wax u qabta nacnacdiina way qoosanaynaa diina ma haday goostaan yaa uga futaxan yaa soo baahan imisa Soomaaliland waa 38 milyan Soomaali 2 milyan ma dhama ama 3 milyan ba ka soo qaad 3 milyan way gobolka Puntland dadka ku magacaaban 3 milyan idin lama socdaan shacab oo dhan idin lama socdo
in yar oo idinku dana khaasa idin kale ma ahan idin lama socdaan waa maamulka yarka oo garowa ka dhisan waxa fidmada wada meeqa qaarumood baa degan badlaan cid u socota iyo cid doonaysa iyo cid rabtaa midna ma jirto marka waxa weeye fidmada ka daaya ummadda ilaahay kolley ka baqi maysaan fidmada ummadda ka daaya qof ilaahay ka baqaya waxaan arkay baarlamaanka kalama hadleen kamana nacnac dhaheen halkaasaan uga harahaya reerkan fidmadu ku dhex dhacday oo ilaahay subxaanahu wa tacaala iyagoo nabad weyn u fadhiya oo barwaaqo u fadhiya oo waddankooda horumarayo oo jidadka la dhisayo oo airboorada la dhisayo oo adduunka la dhisayo oo cirkaa marayo khaaliqu basharkii abuurtay oo u soo diray dani baa ilaahay cirka uga soo ridiyay arrintan u tabcaday oo isagu keensaday ma naqaan meelu ka soo abuursaday iyo meelu ka soo kaxeeyey marka halkaasaan taas uga baxahayaa waxaan rabaa marka inaan halkan aan uga hambalyeeyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan dhammaanteed gabi ahaanba guusha u soo hoyatay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala isagu uu nala doonay dadaal dheeraadana dowladdeeda nabad iyo nolol ay ku bixisay aad iyo aad dadaal dheeraada muddo ku bixinaysay adigu 1 sano iyo 8 bilood ay maaragtay u diyaar garoobaysay in aanu helo madaxweyne ku-xigeenka jumciyadda qurmaha ka dhaxaysa inuu Soomaali noqdo ambassador maxaan ku iraahdaayay ambassadorkii inoo fadhiyay jumciyadda qurmaha ka dhaxaysa inaan maanta ku guuleysanay oo annagu aanu noqonay jumciyadda qurmaha ka dhaxaysa madaxweyne ku-xigeenkii koowaad inuu Soomaali yahay hambalyo baan leh aad baan usoo dhaweynayaa ummadda Soomaaliyeed guul u soo hoyatay weeye dhammaanteed ilaahay baana na siiyey oo naga shukri naqaynaa alxamdulilah rabbil caalamiin maalin walbana waxaa soo kordhahaya dadaallo badan iyo wanaag badan oo dadka Soomaaliyeed u soo hoyanaya oo aanan awal haysano horumar ah oo wanaag ah oo mataqaana wax uun danteena ah baa maalin walba helaynaa waxa hadda muxuu ahaye coronavirus-kaasa naga hakiyey ee soo socda oo diyaar ah ciidamadii badda ilaalin lahaa darkee badda xamar korka Kismaayo iyo xamar inta u dhaxaysa waxa laga soo saaraya shidaal marka ciidamadii ilaalin lahaa oo mariniskoodii wata oo ciidamadii badda ah ayaa mataqaana hadda soo socda waaba diyaar bay ahaayeen coronavirus-ka loo joojiyey iyaga iyo raakibtoodii iyo hubkoodii iyo everything waa diyaar because shidaalkii baa la bilaabayaa maadaama shidaalkii la bilaabayana waxa weeye ciidan ku filan oo maaragtay nabadgelyadooda suga badda waa in laga helo iyo beriga badda iyo beriga annagaa ku filan ciidankeena waa inoo dhisan yahay ciidan aad u fara badan baa noo dhisan inta eriyadaas oo dhan koonfur oo dhan ku filan markee koonfur baa shidaalku ka bilaabanaya kabacdina mudug buu soo maraya kabacdi bari buu maraya kabacdi waqooyi buu gudbaya waa soconaya shidaalku hal gobol laga soo saari mayo ayuu gobol baa laga soo saaraya waana sandulle bigidhi waa barya maaha marka waxa weeye ummadda Soomaaliyeed wixii u danaho ay ku horumarayso future-kooda waa wax bigidhi ah in la qabto oo waxaan barya ahayn oo wax ummadoo dhan u dana waa noloshii ummadda meeqa sanaan sugayna awowayaashayo ay dhibaato soo mareeno annagoo shidaalkiina loo soo bixin iska mid walba tiisi ahaata meeqa kumanaan sano waxaan sugaynay maanta loo baajin mahayo mucaarad yar iyo qole xagga u boodo iyo imaaraad qolada arfaaraheeda fulinaysa loo baajin maayo markee imaaraad iyo carab iyo sacuudi carabiya midna ma raba in shidaal loo soo saaro Soomaaliya absolutely ma rabaan okay waxa ayagu ayna rabin miyaan yeelaynaa marka annaguna waxaan rabnaa inaan soo saarno ayaguna waxay rabaan inaanna soo saarno haye vote baa loo qaadaya marka shacabka Soomaaliyeed oo dhan dibad iyo daakhil baa vote loo qaadaya carabu waxay rabtaa inaan shidaalka Soomaaliya la soo saaro aye u codeeya yaa rabin Soomaaliya waxay rabtaa in shidaalkeeda la soo saaro u codeeya yaa rabin codku meesha u bataa lagu shumaaya laakiin hadda adqaadba waaba dhaaftayba hadda waa bigidhi barya maaha already waa la saxiixa qarankii Soomaaliyeed ee nabad iyo nolol baa saxiixay marka by force baa wax walba ku soconayaan by force qofkii dadka ka haro doontaasaa la saaran yahay horumarkiiyo barwaaqada loogu socdo dee qofkii markaa isagu doonta ka haraa dee waa haray waa si u haray si u soo gaaraa adag marka si uga daba yimaado ummadda Soomaaliyeed 38 milyan oo ummad ah
oo hal meel u jahaysan waxaan u malaynayaa cid gaaraysa inayna jirin carabna waa laga tegaya inta raacsanna waa laga tegaya malaha carrada carabta ha u raadsadaan danahooda iyo lifekooda iyo noloshooda iyo ha u raadsadaan futurekooda ardu carab ha u raadsadaan qolyaha hadda u ruclaynayo ummadda u baabi'inayo dowladda ku duminayo lacagta ku qaadanayo waa la yaqaande beelood bay joogaan kismaayo joogaan garoway joogaan xamar bay joogaan waa la yaqaan waa mucaarad daama jadiid waaba cabtirsadeen weliba iyo macaa shabaabkooda dhagaha laga jafaynaya dhagah labada dhugood baa laga jafaynaya wax loo joojinaya maanta ma jiraan dadkan experience bay yeesheen dowlad caadilana ilaahay waa u keenay oo mayar adag oo horumar iyo qadiyad iyo soomaalinimo iyo wadaninimo iyo geesinimo huwan shacabkiina wuu fahmay wixii lugoynayay wixii danleyda ahaa wixii cadowga u shaqaynayay wixii kaba qaadka ahaa shacabkii waa fahmay oroyoy gabalku dhacde marka oroyoy gabalku dhacde marka waxaa fiican dadka Soomaaliyeed inay dantooda aqoodaan ilmahooda future u sameeyaan ayagu future samaystaan noloshooda iyo mustaqbalkooda ay ka fakaraan saacadan maanta la joogo 30 sano ka bacdi in laga fakaro ma taqaanaa waxyaalo aan macno lahayn oo rag danaystayaal ay dadka ku dhex wareerinayaan oo wax u tusayaan wax jira inay yihiin mana jiraanba wax jiraaba ma jiraan sharci la burburiyay ma jirin dastuur la khalday baan jirin wax lagu xadgudbay baan jirin xaq wixii ka maqnaa baa la siiyey wax xaqoodu dhiman yahana waa la siin doonaa step by step baa la yiri adduunkan wadan dhintay oo 30 sano dhinsanaa baa maanta la abaabudahaya oo la kabkabahaya oo maalinba meel la toosinaya maalinba meel la toosinayo la isku dibaridayo kor loo wadaayo inuu soo kaco cagiisa ku istaago oo istaago markuu istaago socdo ordo baa la doonaya markaasaa labadii lugood mid la qabanaya hadda hal lug yaa ku ordi kara muslim ilaahayo ilaahay baa ina lehe yaa hal lug ku ordi kara nimankan hadda lug nagu dhagaayo shacabkuna durbaanka u tumahayaan durbaanka wax aqliga gali kara iyo wax la qaadan karo iyo wax fiican midna maaha wixii laga maarmi waayaa kollay la samaynaya shacabka dowladda iyo shacabka inta raacsan dowladoonan ولا مدحوين ولا رئيس الوزراء ولا وزيرو ولا برلمان ولا قدومية برلمان ولا كحوجي الندى أول ولا عيدا ولا جنرالو وحلالية واحد دولة كقوانتا هي الشعب كرأسا وصعنا يعني لو تشين ميون وصعنا يعني وددان مستقيم كا بالو صعنا يعني نرش يهرمرك النبضة خلاص أنك الله وددان صاروا صعنا marka wadadaas qofkii diida ama groupkii diida ama cidii diida de waayahay carab ha la hadho ilaa anagu carab inaan reebnaa rabnaa oo haraatay afka inta uga dhifano gadaashayada ay ku dhacdo bad dibda mana ayna u soo kicin oo amarkeedu ka soco Soomaaliya oo shidaalkeedu soo baxo oo ciidankeega mariina yimaado oo kuwa cirku yimaada oo kuwa dhulku wali la wado wali waa la wadaa qoritaankoodii iyo tababarkoodii hadba buqaad baa ka soo baxayso maba la istaajinayo 57 1000 وين عيدك يا جالجارسيا صدقنا هذا مرينا صدق كلام نور دمان ما بلا توجينا marka waxa weeye dadka iyo dhalinyarada iyo waayeelka iyo habraha iyo hooyooyinka niyada aad ka jabinaysaa nimanka siyaasiyiinta ah oo danta carbeed wadow dadka niyada ka jabinaysaa annaga og wax aad taraysaan male niyada aad ka jabinaysaa dawladooda ku diraysaa shacabka iyo dawladii baa iska horkeenaysaa laakiin maya shacabku waa og yahay dawladda waxa la rabaa shacabka inay feeristaagto dawladda waxa la rabaa shacabka inay qiiro geliso dawladda waxa la rabaa shacabkeeda inay ogaato bal kasto gobolada uga nool yihiin si fiican inay ula socoto oo u ogaato la rabaa dawladda nimankan maxuno tuulooyinka gobolada xukumaan ay u gacan dhaafto oo inta u gacan dhaafto ay shacabkeeda ka warqabto oo baahidooda ay maxay daboosho oo la socoto bal loo baahan yahay marka nimankii gadaal bay shacabkii marsadeen yaa gacan dheer marka gacan dawladda gacan dheer oo gadaashooda dadka kala soo bixi karna xal kale male وين قداش وضع الجلسة بحا وحيه الملها وإن ير ودنيستا وقبيل كدنا يسنس وقبل كدنا يسنس والتصير بالجميع كدنا يسنس ومعهنتو بنادر بمخان هالشيء كدنا يسنس ماتشنا وحاس ماتشران I'm tell you true
runtaan idin sheegaya shanta la isla galayaa shanta ayadoo wadanka dagaal ka dhicin oo qori qosh lagu siin saas faryasul la idinku qaadaya intiina danaystaha ma garowga jooga ama xamar jooga ama kismaayo jooga ama meelahaas warwareega ama carabaha mataqaana ka tuqsad idinka idin taala wadankan Soomaali ba iskale Soomaalina qaran bay leedahay qarankiina waa available waa shaqaynaya waa taagan waa cadaalad waa daacad waa geesiyaal waa wadaniyiin maxaa loo hakanaya marka hakasha ma jidho waa horay u socdo guusha gaaran waa okay waxa weeye dadka bini aadanka ah markuu qaldamo wuu isqabtaa haddii qof qaldamo ama kooxu qaldanto waa la isqabtaa waxa la dhahaa war waxaanu inama qabtaa oo dadka qaldan dadkoodaa qabsada horta qof qaldan qofkiisaa qabsada soo ma ogidin qof qaldan qofka dad ugu dhow oo la jooga baa qabsada oo qabashadiisa leh haddii dadkii lahaa qabsan waayaan ama la joogay ama dad ugu xigay ama ugu dhowaa dad hadday qabsan waayeen waa laga gudbayaa ood baa meesha lagu xirahayaa waana la dhaafayaa shacabkuna isaga xabad dawladda ugu imaanaya iyo laba iyo saddex iyo afar majority dadka oo mataqaana birmageydadu markay xamar dhoobato oo lafahooda iyo danahooda la aado oo danaheedii ka weyday Puntland oo baaba iyo xabis iyo cagajuglayn iyo moral jabin maahana ayna maamulka Puntland iyo Jubaland ba ayna wax kale ku haysan waa la cararaya hadda awar Jubaland xamar iyo gaday dhooban yihiin iyo baydhab ay nafta ula soo cararay Puntland saas way imisa soo baxday had ilaa soon meeqa qof oo reer Puntland ah soo baxo xamar ibaa ilaa beledweyne daadsan madi garanaysa kuwa inta ka soo kacay Puntland beledweyne baadihiisa beer ka falanay ina halkaana shabaabna mataqaana isaga celinaya beerna ka falanay taxabis galeelaha marka in Puntland laga soo qaxo oo 20 sano lagu qaxayay in maanta laga soo qaxo oo goboladii kale Soomaaliyeed loo qaxo maxaa keenay maamulka xun baa keenay oo waraabaha ku noqday oo bahalka ku noqday oo dadkii ka xishoonayn oo u turayn oo u aamadayn laga soo cararay sababtoo dadku hadduu nabad galayo ma ka carareen gobolkiis waa ka xamaalan lahaa ilaa qof walba dawladdu lacag ma siinayna iyaga xamaalanayay maamulka Puntland cid buu lacag siin jir afarta u shaqaysaba nimanka xukuma u shaqaysa buu lacag siiya oo cashuurta dadka siiya dadkan dad xamaasho waa oo muruqmaal all reer Puntland oo dhan all reer goboladoo dhan gobol dawladdu lacag siisaa ma jiro all goboladoo dhan waa saa nimanka madaxda hadii dawladdu lacag siinaysa ugu dhiibtaa mana ugu gudbiso waxna uguma qabato mashaariicna uguma qabto caafimaad uguma qabto waxay ugu qabato mal ila afarta marka maamulkaas haystaba cunta shacabku saasuu marka u dulman yahay isagu u xamaashaayo ilaahay risqiisu yuu ku nool yahay nabadgelyo waaye marka hadduu nabadgelyo waaye muxuu samaynaa meesha ugu nabadgelyo dhow buu aadaya oo nafta kula cararaya oo wax ka soo saaranaya oo uu ku noolaanaya aye been baa sheega been ma anigu beenna ma sheego eexna ma aqaani uma kala eexdo dadka waxaan jecelahay inaan xaqa ku hadlo qof wal qaldan aan qaladkiisa u sheego qofka saxana aan waa saxan waxa weeye dawladda iyadu waa saxanta 90% tobanna waa qaldanta tobankaasna bini aadamka dhan baa qaldama ama duruufta marka ay ku dhex jidho iyo hawlaha ku xeeran baa qaladka keenaya sababtoo wadan dumay oo la qabsaday oo carab iyo mahiigo iyo milisanawi iyo balaayo tigray haysto bay timid ilaa hadda maalinta qabsatay 3 sano la rafanaysa kanfiski gare jaatuusiintii baa caradii ka badatay wax allaaliyo wixii dawladaha u shaqaynaya wixii dawladda ka horreeyay kulli jaatuusiin bay ahay gabra dhagaha wax ugu sheegayo ilaahay maxaan samaynaa haya gabre bay ku hayeen dhagtoodu gabre afkiisay ku jeed meediyadan ka aragnay taariikhday taala YouTube-ka ka eeg beeshii ma yaano gabre baan ku nooran ma gabran ku jirayna marka waa ka baxnay ilaahay baa naga saaray dawladda dilo nabadiyo nolol noo keen oo UN-ka dadkooda ceyrinaysa iska badaabal gabre iyo Afrikaan iyo Arab iyo wixii la mid ah bibi walna wadanka way ka ceyris bagayna u ceyrisay haddana waxa la rabaa inta hadday inay majaraha u jaro marka waxa weeye qof gobol gooni u ruhu ma jiro
gobolada waa la wada degan yahay caasimada waa la wada degan yahay cid gooni u ma jirto wadanka Soomaaliya meel qabiil gooni u leeyahay ma jiro laakiin meel gobol walba qabiil baa u badan oo ku dhashay oo alla ku abuuro u badnaa weli laakiin hal gobol oo qabiil gooni u leeyahay maba jiraba Soomaaliya maba jirin mana jiri doono mana jiro marka boolo xafisaynta iyo bawda qaawinta iyo bararaqda yeeraysa waxba dhibca kuma helaysaan waxba ammaan kuma helaysaan sharaf darra ku helaysaan waxba darajo dawladda ugama helaysaan shacabka Soomaaliyeedna darajo iyo maxay tahay lambarro uga xoqonaysaan iimaanka isku suga akhlaaqnimada iska daaya ummadda ha iska horkeeninina dadkiina dhinac ka raaca am tell you true dadkiina dhinac ka raaca waa wax qaldan oo dhan idlan kaliya ma ilaa carab soo dheeraaday bay noqotay jaamac soo guday bay noqotay wax allaaliya wixii falxuma dhacayay iyo wixii dambi dhacayay iyo wixii bini aadanka ummadda Soomaaliyeed iska horkeenkeeda dhacayay iyo wixii dadku ku kala fogaan lahaa iyo wixii dadku isku nacayay koobkay u qaaday iyada laakiin kuwa kale oo badan baa jira oo iyadoo kala ah oo danaystayaal ah baa jira oo mucaarad la ah oo isla daam jadiid yihiin waxa adduunka qasaya waa daam jadiid Soomaaliya oo dhan waxa qasaya waa xisbiga shaydaan waana xisbi shaydaan ما ها حزب إسلام يا حزب صومالي يا حزب بني آدم منا ما يا حزب الله من وحزب الشيطان بلايا نقصر نحطولي إلى حد ما لا فيسكي جرين لا يهيو لا يسكو كيني لا يهيدتكي شن مركي لك أنا بشن بيحكى ولا نقاقيا مركي إمارات دا أمر رئيسة وباي أوردر كإمارات إنه السعودة باي أوردر كدولة مصعونيو باي أوردر كشعب مصعونيو باي أوردر كإسماد مصعونيو amarka waxa soconaya imaara sababtoo ah halkaan ay lacag siisaa jeebabkay u buuxisaa dollar fake hadduu fiican yahay macil baqabilaha waa dollar fake oo ay carabtu u soo daldalayso oo ay haddana lacagtii Soomaalida ku baabi'inayso oo dadkii Soomaalida iyo waddankeeda galaya marka dadkaas waa loo yaabaa dadka waxa sameynaya waa loo yaabaa cid ay yihiinba anigu qabiilkoodana ma kala jeceli gobolkay joogaanna ma kala socbi meel walbay joogaan waa idin sheegay waa dad inkaar qaba cuqubadayadii baa ku dhacday 25 sano ka hor cuqubaday shacabka ka galahayeen baa ku dhacday cuqubaday waddanka ka galahayeen baa ku dhacday maxaa laga qaban karaa marka waxba lagama qaban karo cuquba ku dhacday cuqubadooda ha nala dhaafaan marka yayna sajaran yayna maran yay horay noo sii qaadin nin waxa la yiri nin biyo qaaday xumba qabsay xumbadiina qabsadoona dhaafa surqun baan idin leen beeshiina meel ka daran iyo meel ka fog aad ta Allah idbaad noo keenteen waadna dhibteen waad dhinteen ilaahay baan idinka dacwoon waxa weeye marka maxaan kaloo sheegayaa nimankii xaqa ilaahay u hiilin jiray nimankii dadka kala maslixi jiray nimankii aslaaxu baynunaa samayn jiray nimankii ummadda isku wadi jiray nimankii dadka wacyi gelin jiray nimankii dadka maaragtay diinta ku hagahayay baa meesha ka baxay culummadii baa meesha ka baxday culummo kale oo siloono wahaabiye ah baa carradii haysata dadkii wax isu keenahaya male wax qolo walba qaladkeeda u sheegahayo oo diinta ilaahay inta u akhriya iyo sunnihii nabiga u sheegayo oo war waxaanu macquul ma aha war waa lagu cadaab mudanaya war waxaanu dhaqan islaam ma aha culummadii dhihi lahayd oo dadka kale haji lahayd baa meesha ka baxday meeshii culummadii hadday ka baxday oo raggaas meesha ka baxay waxa weeye waa isku dhabaqday marka waa isku dhabaqday kir iyo car iyo wir bay gaadhay maxaa yeelay waddankan waddan islaam u ahaa intaa oo sano inta oo qarni islaam ku dhisnaa qalad markuu dhaco culummada iyo kitaabka ilaahayba irjica loo noqda ahaan jiray oo loo noqon jiray oo wax kala saari jiray oo dadka xaq baa lagu kala saari jiray ma jiro waa laga tegi culummana ma jiro waxa maamulada haysta iyo dawladuna irjici quraanka ku noqonaya soo marka madaxa in la isla galo sanad walba la isaysto oo la horumarin oo la dhaqaaqin oo la boo oo la hoogo oo tutug meeshaadii joog alla noqdo soo ma waxa weeye علم الله ما هيو وحوي نمان كاس برلمان كفدية وإلهي حال كود أوجه بعد ماشي علماء كتيرة وحي يجوا صوب يانشانو إنه صو قرانو أي ينسحيان بانكوس عنينا ويمشي لون نقنشري مجد وبعض وح علماء وح كتاب وح سنة وح شيء ما أنوار
kama aanu arag annagu meediyada saasaanu fiirsanayna soomaaliya waagii horena culmada wax walba habayn jirnay dowladdii iyo shacabku ismaba arki jirin waxay ku cuntaana dowladda u sheegi jirin waxa shacabku ku cun yahana shacabkaa loo sheegi jiray rag baa nagu dhex jiray kitaabka ilaahay watiya sunnihii nebiga meeshay ka baxeen qolo waxaa joogta businesskii la wareegtay oo wahaabiye ah oo ummaddii aan kala jeclay oo inay isku sii baaba'daba raba hadduu gobol goboleed joogo iyo hadduu qaran joogo iyo hadduu meel kasta joogo iyo hadduu shacab yaaba madaxa inta isla gasho inay isku basbeesho qola rabta oo wahabiyaha sacuudi carabiya wax hore nagu beernay ilaa 91 nagu beeraysay baa rabbi caradii ku sallada geedka maxaa la yiraahdaa magaca baaslo geed yahuudiga ah iyo ayaga ay wahabiyaba 91 bay wadanka yaga timi geed yahuudi wadanka yagu ma lahayn 91 kii baa lagu beer aniga magacaasaan u maqlay wadankii ma arag ilaa 91 qoladan wahabiyadana waqtigaasaan nala ku beer qoladan macaaridka oo dhaan jabiibna waqtigaasaan nala ku beer saddexdaas ma kala haraan maba kala haraan hadday maxay tabaacad yihiin hadday al-shabaab yihiin hadday daacish yihiin hadday geed yahuud yihiin waxaasoo dhan waa iswataan hadday wahaabiya yihiin waa 91kii wixii nagu soo kordhay oo noo yimid oo na qasifay oo na baaba'shay oo isku kacya diray oo na kala jeediyey oo na wareeriyey oo na isugu imaan la'nahay waa saddexdaa qodob maxaa la samaynaa marka waa laga gudbayaa intii lala dahaali karana waa lala jahaadaya jahaad baa lala gelayaa shacab iyo dowlad waa lala jahaadaya geedkan yuhuudka lamaba dhammayn kare habaar alla kuridka aho burcad walba ka baxay bugcad walba ka baxay kuun xabaa bugcad walba ka baxay shabaab iyo daacish laakiin waa la dhammayn karaa iyo nimankan daama jadiid ee mucaaradka saddexdaas labadaas waa la dhammayn karaa geed yuhuudkana waagaanu labadaa dhammayno baanu soo jeensanayna inta la gooyaa la gubayaa khalaas wuu go'aya wuu baaba'aya marka meel la gubay wax kama soo baxaya inintiisa xididkiisa hoosaa la gubaya daama jadiid iyo mucaaradna xididkooda hoose in la guba waa daawo kale mala daawo kale xididkiina hoosaa la gubaya waa laydin goynaa xididkana waa laydinka gubaya wahaabiyaduna waa lamid waa la goynaa xididkana waa la guba amteliyo turu runtaa idiin sheegayaan hal qarin mahayo hal laaliya waxaan maqliya waxaan arkiya wixii meesha ka socdo dhan waa sheegaya marka geed yuhuud iyo mucaaradow waa la isla kiingubin al-shabaab iyo wahabiyoy waa la isla kiingubin rag baa u nool wadanka rag baa nool weli rag baa nool oo ciidamaa soo baxay 60,000 baa laga dhigayaa ciidanka iyaga wallahi baan badda ku jirin oo wallahi baan ciidanka cirku ku jirin oo wallahi baan nimanka maxaan ku iraahdaayay ilaaladu ku jirin booliiska nabad sugidda maxaa la dhahaa ikan waxaa la yiraahdaa ciidanka nabad sugidda waxaa la dhahaa nisa hay-adda nisa oo nabad sugiddu kuma jidho saddexdaasoon ku jirin baa 60,000 laga dhigaya ugu yaraan meel celinaysa male meel walba fodaysaa u darahaya waa gorgor waa shabeel waa libaax waa harabcad waa darab waxoo dhan waa military force usheedii baa lagu jira horaa looga tashaday saddexdaas cudurba saddex cudur ayaa jiray tiri magaceedii dadka soo cadimi jira oo ciriiri gelin jiray saddexdaasaana cadibtay oo ciriirina gelisay waana ka takhallusaynaa waana loo tashaday already waa la dhigay kaartadii looga takhallusi lahaa marka ninka meesha bugtow ama dadkaaga dhinac ka raacda qolaa tahayba waa badan yihiin dadka meesha bugtaa hal gobol maaha hal qabiil maaha hal caasimad maaha waa badan yihiin waa dad aad u fara badan dad bay meele bugtaa dad bay meele bugtaa dad bay meele bugtaa ummadda israacday miyay ka bukaan beeraha aan falana miyay ka bukaan dowladda hagaagtay miyay ka bukaan baladba bal maxay ka bukaan bal barwaaq iyo horumar iyo adduun baa loo jeedaya maxaa iyaga u muuqda imaaraad baa tiri norway ar yeela ar raaca ar heshiiya ar maxaa tahay cartii imaaraad baa na hortaagan iyo carab sacuudi carabiya war wallahi baan weligaya nala caray nama taqaanin buu yiri sangu
والله ما سومالي العرين war Maraykan iyo Ingiriis iyo Talyaani iyo maxaanku Boortaqiis iyo Jarmal iyo Masar baa nacarayn waaya anagoo reebaadiye ah oo cagcad oo xoolo la joogno laba go iyo waran wadano laba go iyo waran iyo fallaan iyo qaansa wadano baa nala carayn waay wada bawd maanta technology haysan iyo hub casri oo darandoori nalama carayn karo arabuna nama carayn karo afarta wiilo ay qaladayo iya horay u socda badda tallaaba horay u socda cid idin baahan iyo cid idin tabaysa iyo cid wax ka qaadi karaan malaha wax yar baa la sugayaa wax yar dabadeed waa dhaqaaqaysa hawsha cid loo hakinaya malaha coronavirus ha yaraado waliba intuu dhamaada lama sugaayo ha yaraada le waxa weeye oo aan haatan halakan uga hambalyaynayaa ciidankayaga xoogga dalka Soomaaliyeed hambalyaan leeyahay hambalyo aad iyo aad bay ilaa Jilib ilaa Marka ilaa Qoryooley ilaa Shalambood ilaa maxaan ku iraahdaa ceel jaalle ilaa meesha la yiraahdo iikan Baraawe ilaa Janaale inta u dhexle bay ugus waxay ku hayaan gumaad baaba geedkay galaanba waa ka saaran hambalyaan leeyahay ciidankayaga xoogga dalka difaaca xoogga dalka Soomaaliyeed ilaahay garabkiina ha galo waa idin hambalyaynayna garabkiinaan taagannahay waa idin hambalyaynayna cadowga jabiya cadowga down baan leenahay ugus down iyo waxay cagaha ku wadato down baabi'iya oo u xiira oo naga ciribtooda allaha baabi'iyo waxaa kaloo meesha yaalla magaaladii Bu'aale oo ciidanku qaban lahaa sababta in dawladdu ay ciidankii uga soo bedeshay oo uga weecisay maxay tahay xagee u wadaa marka ciidanka maxaa Bu'aale loo qaban laayay maxaa ka qaldan dawladayada waa in la qabtaa Bu'aale codsi waay baryama dawladdu Bu'aale inay qabato ciidanka gada iyo mataqaanaa aagaas jooga waa inay Bu'aale qabtaan yaa jooga Bu'aale shabaab baa joogay ma shabaab baa loo turahaya hal la qabto ciidanka magaalada Bu'aale ilaa la qabto wax dhaqaaqahaya ma jiraan waa in Bu'aale la qabtaa iyo agagaarkooda inta ay magacyadooda anigu ma aqaan tuulooyin badan oo hoos yimaado oo nimankii indhaha xiraayo ugu saa ay ka buuxaan in la soo qabto weyn oo ciidanka kumbad looga dhigo mataqaana saadkiisa iyo waxa uu u baahan yahay kumbad inta looga dhigo ciidanka Bu'aale waa inuu qabtaa waa dhamaatay hadda dabaaldegii oo xornimo qaadadkii tii maxaan ku iraahdaa 22 Juun maxaan ku iraahdaa 27 Djibouti maxaan ku iraahdaa waa dhamaaday shaqa waa in diyaar loo noqdo shaqo dawladdu waa inay shaqa diyaar u noqoto awal dawladdu shaqada ay qabanayso shaqooyinkii yaryaraa dhimaraayo dhan way fiski garaysay way qabatay thank you baan baarlamaanka iyo dawladayadaba thank you baan leenahay waad mahadsantihiin khayr allah idin siiyo ka socda halka laakiin Bu'aale talaabada hadda ku xigtaa hal yiraahdaa wareekeena awa wax saxayada meesha kuma jiraan waaba istaag dadkii afar qof buu ku istaagay what's wrong ha qaldan saaxiibayaal marka waxa waa hadduu dhamaaday damaashaadkii iyo dabaaldegii maqaanka banaad hadday dhamaatay haddii dabaaldegii mataqaa xornimo qaadadku dhamaaday ciidanka in dawladdu fasaxda weeye Bu'aale ay qabtaan annagoo shacababa codsanayna dadka Bu'aale dhibaatay ku jiraan dhinacna Kenya ka dhibaysa ciidamadeeda oo xuduud la laho ag fadhida oo xoolihii ka dhamaysay dhinacna shabaab baa ag fadhiya oo dil iyo dhac iyo kursi iyo balaayo dhan ku haya maxaa marka dawladdu sugaysaa yay xukumaysaa shacabkii dhamaayo yay xukumaysaa Bu'aale in la qabto waa gobolada ku xiga waa la ogaan doonaa Bu'aale hal la qabto dawladayada waxaan ku codsanaynaa inay Bu'aale qabato oo ciidanka fasaxdo waa heegan ciidankii waa heegan saas u gadan gataynayeen oo u gaaf wareegaya iyagoo hubkoodii ku gaardiyaya oo hubaysan bay saa u gaaf wareegayaan oo u rucleynaya dawladdu ha fasaxdo maxaa idin dhiman Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Xasan Cali Khayr iyo gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan saddexdii naas wadanka xukuma waxa ku xiga oo soo raaca ninka la yiraahdo Fuad Yaasiin Sheekh Daahir mise Xaaji Daahir buu afar
رئيس الوزراء كحجانك مهدي قدر قولي وزير كأرمها جودها وزير كأرمها دبده وزير كمالية والرجع عن كلام إن بعد ماشي الحكومة أو موادين ورب الناس وحولي وإلهي سماء إنك 7 سماوات كسو عمري ومدة الصومالية دي سقومتها وعدالة كل شقينا يوم قبيل أخو ونقبليس أخو شرعي قلدنا هدو قلدنا يهدو صحسنا تسور كلا هي والواحد ولا بربريه وحلا بربريه مالك دولتي كهريه waxay qoreen oo madmadoobeyeen oo mihiga iyo ninka la yiraahdo ay ka mid sanaawi ay la soo kacshadeen kuwii ka horeeyay dawladdaanu kuwii un baa lagu maamulay haduu khaldanaana madaxdii hore qalday haduu saxsan yahay madaxdii hore baa saxday madaxdii iyaga ka horeysay farmaajo khayra iyo baarlamaankan hadda joog wixii ka horeeyay haduu khaldan yahay qalday وماشي النص وردي هدو سحن يهنا سحبي وماشي النص وردي واحد دولة دار مسامين كلها هاي مالك واحد برلمان كان مسامين كلها يا مالها بحال ليس كجر دفاعية با ورقة قرن أو حل قاس القريب عدد كانوا يكون معايا أو حكومة مولايا بركة قدر هذا هلا توجي يا مالك يا حاسد ماذا يا قبيلة يا جاهل ماذا يا حاسد ماذا يا دقر ماذا أروح أصور دقة دكتور dadkii Soomaaliyeed oo asliga ahaa isugu soo noqdo ee aqliga badnaa very smart ka ah ee isjecla ee wada noola ee diintooda iyo sharaftooda saa ugu dhaganaan jiray waar saa ku soo noqdo hadda nolol rabtaa iyo future iyo mataqaana mustaqbal haddii kalena ku jeeda ka jeeda u kala dhaqaaqa idinka Allah wareeda saacadii aaw okay intaasaan uga baxaya caawa kelib yar baan rabay inaan duubo oo wacdi guud ah wacyigelin guud ah aana cidna anugu focus ka saarayn cidna aana u dan lahayn maaragtay inaan xumeeyo sababtoo inaan qof xumeeyaba uguma talagelin inaan gruub xumeeyo uguma talagelin nimanka oo mucaaradka ah waan jecelahay inaan runta u sheego oon dhaho fidmada nagala dhex baxa mucaarad baa tihiin jaajuusiin baa tihiin sacuudi carabiya iyo waxaad u shaqaysaan imaarad weliba imaarad sacuudigu imaarad daahi ka dambeeyuu ka amraa إمارات بدها لقى عمرها أنا كان رجع يجي إمارات بدها كعمرها إنسان ما قارنا يكواس وشيء يا جواسيست وشيء معارض هو دام الجديد يا شباب من ده كمان بقى وشيء ده على يقول قد ده يبتر لين هذا اعتماد في ساكوسو جلسة وعاد بطل لين ويمان يا أنا أقول شيء كعب 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 بكسو كذا ما قارنا إنسان عد يجي علن كذا أنا متشي gobol Soomaaliyeed oo aan tagi karin ma jiraba oo aan beer ka falan karo oo aan guri ka dhisan karo oo aan barkad ka dhisan karo oo aan ku noolaan karo oo ku damaashaadi karo ma jiraba ee bahayba ma abuurin raas asaystu raas kamboni aniga iskale awowayaashay baa ii xoreeyay cidna magan ugama ahi adarata imaarad nin tabaha afka ugu sida magan ugama ahi oo mana baqayo asaga ingeeji koytay oo baxaya oo imaarad aaday I'm telling you true. marka waxa weeye hala soo dhibriyo hala kala xishoodo hala isu yimaado waxa loo wada dhaqdo future-kood qof walba future-kiisa ha eego nimankan maamulka haya oo gobolada haysta oo Jubaland iyo mataqaana Puntland waxa weeye dadka u dhibriya shacabku waa idin dhiba waa idin dhibsaday waa idin naceen sanka idinka soo tuureen bes sidii sangaaliha xooluhu tuuraan sidii sangaalihi baad sanka ka soo boodeen waa la idin nacay dadka jacaylkiisa kasbada oo dadkiina soo cishada oo dawladdiina ku noqda oo ummadda Soomaaliyeed isu keena oo Ilaahay ka baqa oo wax adgooni u heli kadaan malaha waxa la yahay guriga wax ka weyn hadii la galiyo wuu dilaaci baad ku dhowdihiin marka Axmed Madoobe iyo Dani dilaaci bay ku dhowdihiin dhuntu haday dilaacdana isdad qofkii waa dhimanaya ma noolaan karo marka dhuntu yaa idin dilaacin ummadana u dhibriya ummadana isku celiya dawladdiinana baxa u haydo oo apologize iyo waxaad ku qaldan tihiin ka apologize garay waxa idin ka qaldan tahana kula xisaabtama naga joojiyade apologize baan u baahanahay waad naga qaldantiin waa caroorayna naag la furay baa tahay marka caroonaysi waa caroorayna waa go'ayna waa yaalayna naag la furay miyaa too saddex lala guursaday miyaa tihiin nimanka oo gobolada haysto maxaad la caroonaysan maxaad si la amaqleed yaad ka caroonaysan yaad hagee soo caroonaysan dee badda tallaaba haddaad caroonaysan oo aada imaarad la imaarad baad idin soo dirsatay eeyo u tihiin ruufyaanna ahe I'm telling you true run baa sheega wallaahi billaahi tallaahi aan ilaahay beeniga qoray ajar baaban ku helahayaa
kitaabka ajarka la ii buuxinayo bed iyo waxay wadaan ruuhaa iyo ruufyaannimo carbeed nagala taga ruufyaannimada carbeed okay caawa intaasan kusoo gabagabaynayaa hadal badan ma ana rabin weliba hal saac baan hadlooyaa too much aad iyo aad baan idin salaamayaa dhallinyaradaydiina ma hayo oo caawa facebooka waxaan ka soo galay laptopkayga kama soo gelin kama soo gelin taleefanka marka taleefankii iyo waxoogaa lama qabsan insha allah waase la qabsan doonaa khayr badan baan idin rajaynayaa insha allah biidnillah waa isu soo noqo dambe oo wanaagsan ilaahay rabbigay subxaanahu watacaala waxaan ka baryaynaa caafimaad iyo dambi dhaaf iyo hanuun iyo nabadgelyo waarta biidnillah meelaan joognaba dembigeen iyo kii waalidkeenba allaha dhaafo ayay xagee taabtaa marka okay end life iyada soo baxaysa miya baran doonaa waxaan waan xaguu aaday kii xumaayo aan wada